waa maxay isbeddelka ugu weyn ee lagu soo kordhiyey iPhone 15 sanadkan sidoo kale maxaa sababay cilada ugu weyn ee lagu arkay mobilkan isbeddelka ugu weyn ee lagu sameeyay iPhone 15ka sanadkan waa kaamirada sida ay soo bandhigeen shirkadda Apple waxa ay soo kordhiyeen kaamirooyin ka duwan kuwii hore ay 14 ku lahaa iPhone 15 Pro Max wuxuu leeyahay 7 lenses taasoo ka caawinaysa inaad sawirto sawiro kala duwan waxa uu leeyahay lenses ah 48 mm sidoo kale waxa uu leeyahay 35 mm sidoo kale waxa uu leeyahay 28 mm dhanka kale waxa uu leeyahay macro lens iyo sidoo kale 15 Pro Max wuxuu leeyahay telephoto iyo sidoo kale 13 mm taas waxay ka dhigan tahay inuu iPhone 15 Pro Max ku leeyahay 7 lenses taasoo ka duwan iPhone 14 Pro Max sidoo kale iPhone 15 Pro Max ku main cameradiisu waxay leedahay 48 megapixel taasi oo ka xoog badan kuwii hore loo arki jiray sidoo kale sanadkan waxa lagu soo kordhiyay iPhone-ka inaad bedeli karayso focus point-iga sawirkaad qaaday oo caadiga ahaa oo aan lahayn portrait-ka inaad portrait u bedeli kadib sawir portrait leh inaad caadi ku soo celin karayso sidoo kale markay noqoto filmmaking-ka sanadkan waxa lagu soo kordhiyay in iPhone-ka aad ku duubi karto external hard drive kaasoo ka caawinaya inaad duubato muuqaal high quality oo ProRes oo log ProRes kaasi oo ku siinaya dynamic range ka weyn muuqaalka lagu duubo kamerada caadiga ama standard profile log ProRes waxa ku duubi karaa 4K 60 frame per second taasi oo ku siinaysa high dynamic range oo flat profile oo aad color green karto oo aad colorka u saari karto si qurux badan kaasi oo aan lahayn wax highlight ama shadow oo ay lightingkiisa si qurux badan ugu duubaysa kamerada sidoo kale waxa cajiibka oo sanadkan lagu soo kordhiyay iPhone waxa kamid ah action mode adigoo muuqaalkaaga duubayo si caadi u soconaya aan waxba culays badan isaarin muuqaalkaaga baad waxa haynaysaa action button-ka oo kamerada duubaya waxa ay ku duubaysaa muuqaal aadan suuraysan karin ama aad duubi karin si xataa haysato gimbal aad duubi karteen waxay awood ku siinaysaa inaad ku duubto si yar smooth action mode isbeddelka ugu weyn ee sanadkan lagu sameeyay waxa kamid ah qaab dhismeedka mobilka sanadadii hore waxa laga sameyn jiray aalad la yiraahdo aluminum-ta oo sidoo kale iPhone 15 iyo iPhone 15 Plus ba ay yihiin aluminum laakiin iPhone 15 Pro and Pro Max ka laga sameeyay titanium oo ah aalad loo isticmaalo walxaha xagga sare loo diro space-ka oo ka samaysan aalad aad u fudud dhanka kalena aad u adag qaab dhismeedka sanadkan waxa kale oo aad ka u muhiimka oo laga bedelo waxa kamid ah charger-ka mobilkan awl wuxuu qaadan jiray charger la yiraahdo light-ka laakiin hadda waxa loo bedelay USB Type-C taasoo ay ku khasabtay EU-da oo ka dhigtay isbeddel aad u weyn oo ku yimid dhammaan qalabka ay soo saardo waxa weeye shirkadda Apple ay u guuri doonto Type-C oo adduunka oo dhan hadda u wada guuray USB-C-gan oo ka xoog badan 5 jeer USB-C-ga caadiga oo Type-C-ga 5 jeer ayuu ka xoog badan yahay waxa la yiraahdo USB Type-C 3 ah oo aad uga xoog badan kii hore markay noqoto marka file transfer-ka la yiraahdo ama faylasha lagu kala wareejinayo oo aad uga dhaqso badan yahay USB-C-ga caadiga maadaama laga sameeyay aaladan titanium-ta oo aad ka u fudud iPhone 15 Pro Max waxa uu noqonayaa Pro Max-kii ugu fududaa taasi oo sabab ay ka dhigtay sidoo kale in hadda lagu arkay cilad weyn oo ah in haddii mobilku ka dhaco uu si fudud ku jabi karayo qaybtiisa gadaal laakiin dhanka kale awal markii ka jabo 14 Pro Max qaybta gadaal waxa lagu bedeli jiray $500 laakiin hadda waxa lagu bedelayaa $200 maadaama ay soo jilciyeen qaybta dambe ee mobilka waxa ay bedel uga dhigantaa bedelkeeda in lacagta lagu bedelayo repairing-ka inay ka yaraato tii hore sidoo kale sanadkan waxa lagu soo kordhiyay action button kaasoo ka caawinaya inaad feature-rada favorite-kaaga aad ku xareysato sida markaad leerka daarayso hal mar baad taabanaysaa ugu daarmi hadaad kamerada ka dhigato kamerada hal mar baad button-kan taaban kamerada ku tagaysaa hadaad ka dhigato silent mode ka gelaya oo silent-ga waa feature kale aad casri u ah
oo kaa caawinaya si degdeg ah qaybta aad rabtid inaad u geli karto. sidoo kale sanadkan waxaa aad loo casriyay dhanka gaming-ka. sanadkan waxaa lagu soo kordhiyay iPhone-ka oo chipkii hore laga bedelo ahaa 16 Bionic oo sanadkan ay guureen A17 Pro chip, sidoo kale leh 6 cores kaasoo aad u caawinaya dadka gaming-ka ciyaaro, graphic aad qurux badan oo muuqaalka quality-giisu high yahay ku siinaya oo ku siinaya speed ka xoogan speedyadii hore oo dhanka gaming-ka iyo muuqaal ka qurux badan muuqaaladii hore. markay noqoto dhanka storage-ka, iPhone 15 waxa uu ku soo baxay iPhone 256GB 512 iyo sidoo kale sanadkan 1TB oo ah xaddi aad u weyn oo qofka ka caawinaysa inuu wax badan taleefankiisa ku kaydsado ayadoo ay la socoto inaad awood u leedahay inaad external drive aad ku duubatay muuqaalka aad duubaysa, taasoo caawin doonta dadka muuqaalada filimada ku duubi karaya in ay isticmaalaan space aad u weyn ayagoo mobilkoodii wax culays ku imaanayn inay banaanka ku duubtaan, taasi oo wax badan horumarinaysa markay noqoto dhanka filmmaking-ka. markay noqoto dhanka battery life-ka, sanadkan 15 waxa uu batterigiisu yahay 4441 ampere halka sanadkii hore 14 uu ku soo baxay 4232 ampere. wax yar ayuu ka badan yahay. markay noqoto waqtiga uu charger-ka uu ku qaadanayo full ku noqonayna haweeye 1 saac iyo 49 minute sida tijaabo lagu sameeyay. cilada ugu weyn ee mobilkan lagu arkay iminka waa dhanka batteriga inuu aad u sii deynayo, sidoo kalena uu kululaanayo iyo mararka qaarkood in la soo bandhigay mobilka oo qaybtiisa gadaala bararaya oo kulligood ay la wada xiriiraan dhanka batteriga. sidoo kale waxaa la sameeyay tijaabo ku saabsan dhanka batteriga oo 30 daqiiqo waxaa la isticmaalay isagoo mobilku buuxo 15ka Pro Max 30 daqiiqo dabkiisa la isticmaalay oo la isticmaalay mobilka waxa uu dabka dhumiyay ku dhawaad 78 mitir, halka marka isla tijaabadaas oo kale lagu sameeyay 14 Pro Max-ka uu tagay 92% boqolkiiba. laakiin taa waxay haddana daafudhay in 14 Pro Max-ka markii la update gareeyay oo lagu soo dejiyay iOS 17-ka inuu asaguna batteriga 30 daqiiqo markii la isticmaalayo uu noqday 76%. taas oo loo maleynay inay caqabad u tahay iOS 17-ka, maybe inay soo saaraan mid cilada lagu xalinayo ama update kale oo ciladan lagu xalinayo dhanka dabka. balse markay noqoto 15 Pro Max-ka maadaama uu leeyahay kaamirad ka culus kaamirooyinkii hore oo aad looga shaqeeyo ah telephotoga iyo sida mobilkan loo naqshadeeyay iyo qaybta gadaalo oo titanium-ka laga sameeyay waxyaalo badan oo isbiirsaday inay sababayaan in mobilkan dabkiisu uu aad cuno qaybtan gadaalna maadaama ay khafiif tahay oo jabayso in mobilku batterigiisu uu soo riixo maadaama hadduu kululaado. iyo mobilkan oo aad loo casriyay dhanka kaamirooyinka qaybtood markii wax lagu duubayo waxay sameeyeen overheating. marka hadda overheating-kan soo baxaya wuxuu muujinayaa in maadaama kaamirada lagu sameeyay upgrading weyn inay ciladu tahay waxa weeye tallaabada weyn ee Apple ay hore u qaaday inay sababtay. laakiin waxaan rajaynaynaa in Apple ay waxa weeye soo saarto update cusub oo lagu xalinayo caqabada. muuqaalkeena ku xiga waxaan kaga hadli doonaa caqabadaha ugu waaweyn iyo dhibaatooyinka iyo ciladihii lagu arkay iPhone 15-ka ee soo kordhay xilliyadii u dambeysay 10kii beri uu soo baxsanaa. haddii aad rabtid muuqaalka iyo muuqaalo la mid inay heshid fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe dheh, sidoo kale page-ka iyo Facebook-na soo follow galay nala soco mar kasta. aad baa u mahadsantihiin.